السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ميل كستا جوجتان الله idin barakeeyo oo walaalkiin Abdul Hakiim oo idin leeg guuleysta. Ma rabtaa inaad iska dayso caadooyinka ku daashaday ku ragaadiyay ee lafahaga jismiga burburiyay qalbigana dhaawacay ee aad ka soo kaban laadahay. Ma rabtaa inaad iska dayso caadooyinka xunxun sida filimada iyo heesaha. Ma rabtaa inaad iska dayso caadada markaad kaliya guriga aad soo gasho aad sameynayso ee qof kale uusan ku arkaynin Ilaahay mooyana subhanahu wa ta'ala. sida dhalinyarada inay gacantooda isticmaalaan xumaanta inay fiirsadaan sawirada qaaqaawan inay fiirsadaan ma rabtaa inaad iska badayso bataatan oo mar dambe aysan noloshaada ku soo laabanin horna aad u socoto ma rabtaa wax walba oo aad ku haminayso oo guulana inaad gaadho ma rabtaa inaad noqoto qof go'aan adag oo go'aanka u gaar dib aan uga laabanin haddii jawaabtaadu ha tahay shan qodob kaliya samee mid ugu horeysa waxaad seexataa xilli hore maxaa yeelay xilli hore in la seexdo diinteena way faraysaa ilaa shuruud ma ahane sida inuu qofku xaaskiisa la soo jeedo ama cilmu daalacanayo iyo wixii la mid ah xilli hore seexo xilli hore hadii aad seexato micnaheedu waxay tahay waxaad soo kacaysaa xilli hore markaad soo kacdana maxaad sameynaysaa salaad subax waxaad ku soo tukataa qodobka labaad jamaacada qodobka ugu horeeya waxaan ku dhahay xilli hore seexo qodobka labaad waxaad daa'imtaa subax walba in aad ku tukato jamaacada aadan marnaba seeraynin biidhnillaahi tacaala subax walba ku dadaal in aad ku soo tukato masaajidka oo jamaacada aad la tukato biidhnillaahi tacaala qodobka saddexaad habeen walba ha seexanin qodobkan aad u dhageyso waxaad ka heli doontaa midho aad u qurux badan oo aad u sharaf badan ha seexanin adiga oo aan akhrin kalaam rabbil caalamiin habeen walba seexo isaga oo dhabta uu ka saaray kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii Ilaahay nafta saa uu kaga qaadana wuxuu kugu dambeeyay akhri wuxuu ahaa kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wallahi taas hadii aad daa'imto oo habeen walba kitaabka Ilaahay aad akhrido wiikliwad ama hal isbuuc adiga ayaa noloshaada ka arki doono iimaankaaga inuu isbedelo noloshaadu inay isbedesho heer waxaad gaaraysaa maalintii adoo shaqada jooga aad leedahay Ilaahay habeenka rid joodarigeena igii ama sariirteedii aan kitaabkaaga akhriye isaga ayaa ku tawjihin doona qodobka afraad kaas waa qodobka saddexaad buha qodobka afraad waa shan qodob oo muhiim ah qodobka afraad salaad walba tukato iyo xilli walba waxaad baradaa Ilaahay khaasatan meelaha xumaanta aad ku sameyn jirtay ama aad ku fiirsan jirtay salli dhigo laba ragcad tuko bad ducada mar walba aad badiso Ilaahay waad u dhowdahay waxa aad rabtana jambigaad ku haysaa inuu Ilaahay ku siiyana biidhnillaahi tacaala ayay u badantahay wuuna ku siin doonaa biidhnillaahi tacaala waxa aad rabtana Ilaahay uu ku siin subhanahu wa ta'ala qodobka shanaad u dambeeya isagana oo aan rajeenayaa dhamaantiin inuu wada anfici doono ama wada anfici doono dhamaantiin hadaan dhalinyaranahay waxaa daa'imta tasbiixda nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam markuu murgayna waxa la yiraahdaa tasbiixso markuu guuleystayna waxa la yiraahdaa tasbiixso culimadu waxay yiraahdaan dawaa'ul qalbi waay maxaa yeelay wax walba qalbiga ka soo fulaan qalbiga hadii la daaweeyo oo la nadiifiyana xumaan kuma soo dhacayso shanta shay hadaa dadaasho oo aad daa'imto waxa tahay guuleyste biidhnillaahi tacaala karum sheeg oo u gudbi oo la sheergaree oo la wadaag naftaada iyo walaalaha kalaba walaalkana idin leh meel kasta joogtaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh